markana waxaan eegaynaa warbixin la yaab leh oo ku saabsan nin hilib bisadeed ka sameeyay lacag gaaraysa $5,000 Mareykanka ah kuna sameyn jiray sambuuska taw maxkamad ku taala ismaamulka Nakuru ay maanta ku xukuntay 3 sano oo xarig ah. haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyo eegaya wariyaha RTN Cabdilcasiis Barrow. waxa uu ahaa xukunkan mid si weyn ay indhaha ugu hayeen shacabka ku nool ismaamulka Nakuru. go'aanka ay maxkamadda qaadanaysana waxa uu ahaa mid xiiso u lahaa bulshada ku nool gobolkaasi. James Mukangi ayaa maxkamadda ka hor muuqanayay kaasi oo dhowr maalmood ka hor ciidamada nabadgelyadu ay soo qabteen isagoo gowracay bisad kadibna ka saaraya haragga. ujeedka uu ka lahaana waxa uu ahaa in hilibkeeda uu shiilo isla markaana uu ku dubo sambuus kana iibiyo dadka halkaasi ku nool. James ayaa hawshani waxa uu waday muddo 8 sano ah sida uu ka hor sheegay maxkamadda, waxana uu ka sameeyay qarashaad aad u fara badan. 34 jirkan ayaa waxa uu sheegay in sambuuska uu ku shiilay hilibka bisada uu ka iibin jiray hoteelada waaweyn ee ku yaala magaaladaasi, tan oo shaki gelisay dad badan oo jeclaa cunida sambuuska oo ku noolaa magaalada Nakuru. inta uu hawshan hayo waxa uu gowracay kadibna uu hilibkooda ku dubay sambuus ku dhawaad 1,100 bisadood, waxana uu ka sameeyay lacag gaaraysa 500 oo kun oo shilinka dalkan Kenya una dhiganta qiyaastii $5,000 sida uu sheegay ninkani. booliiska saldhigga Okolima ee Nakuru ayaa ninkan gacanta ku soo dhigay kadibna waxay u gudbiyeen maxkamadda. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ismaamulka Nakuru oo dhacdadan ugubka ku ah deegaankaasi ka hadlay waxa ay sheegeen in tani ay tahay dambi isla markaana ay leedahay ciqaab cidii lagu arko iyadoo falkan oo kala sameynaysa. maxkamadda ismaamulka Nakuru ayaa ugu dambeyn James Mukangi ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah. shacabka ku nool ismaamulkaasi Nakuru ayaa baraha bulshada waxay ku qorayaan dareenkooda ku aadan falkan iyagoo qaarkoodna ka hadlaya badqabka sambuuska magaaladaasi lagu iibiyo. waa tahay warbixintaasi la yaab kale inta aan kaga soo laabano, waan filayaa dad badan oo markaa sambuuska aad u jeclaa in markaa ay dib u eegi doonaan cunista sambuuska.